habeenka reer Mareykan ee Elon Musk ayaa ku baaqay in la xidho wakiilka qaramada midoobay golaha ammaanka oo fadhiya Soomaaliya kaas oo dhawaan si bareer ah u dafiray xasuuqii loo geystay shacabka Jamhuuriyadda Somaliland. reer Somaliland ayaa isla markaana banaanka soo saaray cadeymo iyo waxyaabo kale oo lagu eedeynayo wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya maadaama uu haysto dhalashada Mareykanka isla markaana uu arrimaha lagu eedeynayo aanay la xidhiidhin arrinta xilka qaramada midoobay ee hadda hayo ma jirto wax xasanad ah oo uu ka badbaadin karto sharciga Mareykanka. sidoo kale waxaa socda baaritaano lagu daba joogo oo madax kale oo ka tirsan maamulka Xasan Sheekh Maxamuud kuwaas oo iyana kiisaskooda la soo bandhigi doono dhawaan. nimankan tugta ah oo mas'uulka sumcad xumada ku dhacday Soomaalida ayaa halkaa ay iska qarin lahaayeen ku mashquulsan weerar iyo dacaydo ka dhan ah Somaliland dhawaan. waxaan hubnaa in ay arrintani ka qoomameyn doonaan mas'uuliyiin badan oo ka tirsan xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud. maaskii waxa uu sheegay inuu ka mid ahaa wakiilka qaramada midoobay u fadhiya Soomaaliya dadka lacagta ka dhacay waqtigii 2019 xilligii coronavirus lacagaya caruuraha lagu caawinayay. sidoo kale fadeexado kale ayaa jira iyaguna soo ifbaxaya oo sheegaya wakiilka qaramada midoobay Abubakar Baale inuu isku dhiibay xilligii Mareykanka tagayay qabiilka uu hadda yahay mid aan ahayn gaar ahaan qabiilada Somaliland. waxay intaa ku darayaan in ay jiraan baaritaano hay'adaha amniga musuqmaasuqa iyo maaliyadda iyo sidoo kale xuquuqda aadamaha labaduba ay ku daba joogaan wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya fadhiya Abubakar Baale. inay ahayd markii wakiilkani si indho la'aan ah isaga indhatay xasuuqii baanaa ee xukuumadda kaliya taliyay Maxamed Siyaad Barre u geystay shacabka Jamhuuriyadda Somaliland ku 1980 xasuuqaas oo dunida si weyn uga diiwaan gashan isla markaana ay og yihiin cid kastaba. dhinaca kale dawladda Israa'iil ayaa iyaduna dabada ka wada mashruuc ka dhan ah mas'uulkan habka ku mahadsan tahay inaad ka mid tahay daawadayaasha Xogreeb TV ka mid noqo kumanaanka qof ee ku taxan Facebook-geena Xogreeb follow soo dheh oo nagu soo biir sidoo kalena ha ilaawin share tayo kuma kuwa noo mihin daawade waad ku mahadsan tahay sida aad noogu xidhan tahay.